waxay u tababaran yihiin wanaag, qalbiyadooduna waxay jecel yihiin khayrka, waxaanay la mid yihiin dahabka. bulshada dhexdeedana waxay ku leeyihiin saameyn weyn oo ballaaran oon oran karo taariikh waarta ayay mudan yihiin nagu filan. martideena maanta waa geesiga Fahmi. waxaan maanta u yeernay Fahmi, isaguna ma oga waxa aanu ku yeernay. joornaalka wayna bilowdaan. عليكم السلام. تمازجت كلها لتجسد تاريخ المملكة وثقافتها للتجارة وملتقى استراتيجيا نادرا بين القارتين. الفضاء الإسلامي أضافت قيمة هندسية متجددة. هاي دانيال سوغلا. إلى المحرين تصل الماضي والحاضر جنبا إلى جنب، لكأنها نبتات فطر فوق هذه الأرض الشاسعة، ولكنها في الواقع يمكن بيها لنفس عتاد. وهذا الأمر بقي سرا تاريخيا غامضا. هذا المكان المتميز يعتبر اليوم المكان الوحيد في العالم الذي يحمل مثل هذا التصور. يمكن صورة بالعباد. البعض من هذه المواقع الغريبة يعود بالمفاعل إلى عهد الداعش الذي قصد دمار هذا واسك بيحكي كرتادو. يمكن قيبت وركا إنك سدينا. war degdeg ah oo soo gaaray waxa la sheegayaa ninka la yiraahdo Fahmi inuu ka farxiyo caruuraha agoomaha ah ee rashada ah waxba haysan. waana nin qalbi wanaagsan oo dadka soo jiita, dabadeetana waxa uu taraa wax walba oo uu tari karo. waxa uu noqday qaarkood sida hooyadood iyo aabahood oo kale, isagoo dadaalkiisa noloshiisa inta badan ku bixinayay sidaas. waa nin weji furan, farxad ay u dheer tahay, dadkana jecel inuu ka farxiyo bini'aadanka, isagoo jecel inuu farxad u siiyo sida waalidkooda kale ama hooyadood iyo aabihii dhalay oo kale, farxad aan kala go' lahayn ilaa ay u qaateen inuu yahay waalidkoodii dhabta ahaa. Fahmi waa nin wanaagsan oo naxariis badan. Fahmi anaga uu nala weeyahay micnaha anigu waxaan u arkaa walaalkayga weyn. markii ugu horeysay aan bartay muddo haatan gaaraysa 7 sano ilaa 8 sano, waxaan ku arkay inuu yahay shakhsi deeqsi ah oo inuu wax bixiyo jecel, inuu cid walba caawiyo. waa nin wax bixiya isagoo aan shuruud iyo wax kale ku xidhayn, isagoon xataa ka rabin qofka waad mahadsan tahay ayuu qofka wax siiya. aniga waxay leeyahay Fahmi oo aan nolosheeda arkay inuu yahay qof dadka aad u caawiya, dadka jecel oo aan iska weynaysiin. aniga way caawiye, agoon baan ahay bilaa aabe bilaa hooyo. waa insaan habeenii maalinba dadka u shaqeeya, ganacsi u khaas ayuu leeyahay iyo taarimaha qoyskiisa. waqtiyadiisa shaqada markuu dhammaysto, waqtiga ugu weyn wuxuu ku bixiyaa caawinta dadka. waqti anigu aan u baahnaa qof amba dad, fikrad wanaagsan ayuu siiyey. aabe Fahmi wuxuu igu yidhina ogsoonow saaxiibka waqtigaad u baahan tahay waa kii ku garab istaaga. isagaana i caawiyey inaan jaamacadda dhammaysta. xataa waxaan jecelahay in anaa doortay. anigu waxaan aan jiray qof aad u qajila, laakiin isagu wuxuu ahaa insaan aad u wanaagsan. run ahaantii isagu ku yar yahay social media,
ma jecla matalan ba markaan anagu israacno oon qoyskii wada tagno oon tagno meelaha dadka waaweyn iyo meelaha dadka tabaalaysan in la sawiro amba kamarad lala daba tago amba social media la geliyo muu jeclaan jirin isagu. Ibrahim shaqadu qabto si fiican buu qabtaa. wanaagga aad dadka u samayso iyo sida wanaagsan qof walba u garab istaagayso Allah rabbil caalamiinka ayaa ka abaalmarin doona wanaagga dadka u samaynayso. walaalkay iga weynna waa tahay wax badan baan kaa faa'iidnay tan nolosheeda iyo tan kaleba wax weyn baan kaa faa'iidnay. anigu aad baan u jeclahay oo qof saaxiib aabanaya wallahi siduu ii garab istaagay cid ii garab istaagtay ma jirto. isaga ayaa wax kasta i baray waana taa ma ilaawi karayo. fahmi anigu aad ayaan kuu jeclahay aabbahay saaxiibkii baa tahay qof aan aad u ciseeyaa tahay insha allah aad baan kuu jeclahay. fahmi waxaan kuu diyaarinay ilaahay khayra ku siiye kadis yar insha allah ku cajabin doontaa. bal horta aan yaro maqalno taleefankan. waan ku salaamay fahmi sidee baa tahayna may garanaysaa? waan ku garanayaa. waxaan ku leeyahay waan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ii garab istaagtay iyo wanaaggaad ii qabatay. si kastee haataba adiga wax kasta i baray waad ku mahadsantahay noloshaydaad beddeshay. adigu waxaad ahayd aabbahay saaxiibkii qofka garabkaaga baadana waad caawisaa qof wanaagsan baa tahay. ilaahay ku xafido yaa rab oo ilaahay caafimaadha ku siiyo. waanad mahadsantahay ku mahadsantahay noloshaydaad garab qabatay. waan ku jeclahay. haddaba baaba fahmi waxaan ka dalbanay in uu dhaqaaqo dhanka iyo albaabka. waa qof wanaagsan oo jecel dadka inuu caawiyo kuna caawiyo intii karaankiisa ah. mar walbana jecel qofka aadmiga ee isaga garab ka soo doorbida inuu garab istaago una caawiyo. maasha allah weli dunida dad wanaagsan ayaa ku nool sida baaba fahmi oo kale iyo qaar kaloo badan. haddaba walaalahayga Soomaaliyeed maanta waxaa laynooga baahan yahay in qof walba wanaag sameeya amba samafala noqda amba dadka u gargaara aan dhahe in aynu abaal marina oon xusnaa wanaaggiisa inagoon eegin qofka ceebtiisa iyo daldalooladiisa balse laakiin eegina qofka wanaag ku qabtay intee in leeg ayuu leeyahay. alle aan ka baqanno ay noqonno dad wanaagsan bay nahay dad iskugu yeedha wanaagga iskana fogeeya xumaanta. taas ayaa aakhiriya adduunba lagu liibaanayaa walaalkayga muslimka ah amba andhaha Soomaaliyeed. walaal iska ilaali kana fogow ceebaha walaalka inaad faafiso. alle subxaanahu wa tacaala ayaa yidhi qofkii hal ceeb walaalkii u asturaa isagana 9 ceebood uu leeyahan asturaynaa. walaal aan ku dadaalno wanaagga. wax kastaba way isdaba marmari hataa yani image shimba chance aan ku fakiro markaasa waxa isweydiiyaa waxaan ma baraankiba ma wax kala si wuxuu jiraan bas aniga dhanba isku dhaxyaacay hataa qof ila hadla ma bas jirin laylama ba hadleen qof walba saas uu idaafi ina hataa mid uu hataa أكد لي saanu hubiyo bal ma aniga dila jeedaan mise qof kala jira. baaba fahmi waa qof qalbi wanaagsan una naxariista aadmiga wanaaggiisa oo dhan halkan kuma soo koobi karno balse laakiin waxaan oran karaa waa nin dad badan caawiyey. fahmi waad u qalad